السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan maanta waxaan ku qaadanaa casharkeennii labaad ee Adobe Premiere Pro oo ah creating new document ama creating new project. Hore waxaan soo qaadanay casharkeennii koobaad ee downloading and installing oo ah inaad softwareki computerka ku soo shuban karto, soo download gareysan karto marka hore, computerkana aad ku soo shuban karto. Waxaan filayaa inaad dhammaantiin la soo degteen, computerkiina aad ku shubateen ayaan rajaynayaa. Marka casharkeennii labaad maanta waxaan creating new project. magacaygu waa Fattax Maxamuud. fadlan haddii aad channel ku cusub tahay subscribe noo saar, like nagu dhiirigeli, wixii faalleed qabtana comment-ka nagu reeb. marka aniga waxa igu bingareysan tahay taskbarkayga halka bii yaala, kadib click baan leeyahay. waxaan soo furanayaa Adobe Premiere Pro. inta ii soo furmayso ayaan in yar sugayaa. Adobe Premiere Pro markay sidan igu soo furanto waxaad arkaysaa in Adobe-ooyinka gebigood ay isugu dhadhow yihiin. halkan waxaa inoogu yaala new project iyo open project oo ah project cusub inaad samayso iyo inaad project aad hore u samaysay oo aad save gareysay aad dib u soo furato. Adobe-ooyinkii horena waxaad garanaysaa ama Adobe Photoshop iyo Illustrator iyo InDesign oo kale. markaad soo furto waxay lahaayeen laba tab oo ah new document iyo open oo ah inaad document hore soo furato iyo inaad new document samayso. marka waa new project iyo open project. tani waa video editing. marka sidaas soo gasho waxaad dooranaysaa new project markaad doorato halkan waxaad ku qoranaysaa magaca project-gaaga. halkaas imika kale waxaan ku qorayaa first project. marka halkaa ku qorto halkan waxaa ii hoos yaala location-kii oo ah halkii ay igu save gareynaysay project-gayga markaan hadhow export ku sameynayo. haddii aadan folder dooranina badanka waxaa laga yaabaa ardaydu isagoo document sameynaya Adobe Photoshop ahaato ama Adobe Illustrator ahaato isagoon qofku location dooranin, inkastoo taasi marka la save gareynayo location-ka la doorto oo ay location-ka dooro ku soo saarayso, laakiin tan hadhow markaad export gareynayso uu ku export gareynayo. marka haddii aad intaad Adobe Premiere Pro soo gasho aad video edit gareyso kadib aad exporting ku sameyso oo aad garan weydo meeshuu kuugu export gareeyay, waxaan kuu sameynayaa inaan ku tuso halka aad ka heli karto muuqaalkaagii. waxaan tegaynaa file-kaaga tegaysaa. markaad file-kaaga sidaa u joogto waxaad tegaysaa documents. software kasta oo aad computerkaaga ku shubto oo wax lagu edit gareynayo ama aad wax ku qabanayso halkan ayuu folder ku leeyahay default ah oo muxuu ahay marka hore uu samaysto marka hore lagu soo shubo computerka. haddii aad arkayso waxa ugu sareysa Adobe PowerSoft, Custom Office Templates iyo Wondershare. marka video wax kasta markaad edit gareyso haddii aadan meel location u dooranin uu kuugu save gareeyo halkan uu ku save gareynaya. marka wixii aad weydo waxaa usoo doonaysaa halkan imika kale Wondershare. haddii aan tago oo Wondershare filmora ay ku jirto videoyadii aanan location-ka u sameynin ama waxyaabihii aan ku edit gareystay ee aanan location u samaysanin halkan uu kaga save gareynaya. oo haddii aan double click sii idhaahdo halkan waxaad arkaysaa folderro fara badan baa ku jira. marka waxaan tegayaa outputs ama wax soo saaradii ama waxyaabihii lasoo export gareeyay. halkan haddii aan double click idhaahdo waxaa ku jira 5 cod baa ku jira oo ku edit gareeyay. marka wax walba default folder buu leeyahay oo documentska ku dhex jira oo documentska ka dhexelaysa wixii aadan location u sameynin. waxba muxuu ahaayay ciladaas haddii ay ku qabsato qaabkaas aad ula soo baxaysaa muuqaalkaagii ama wixii aad edit gareysatay. haddii aan ku noqdo marka Adobe Premiere halkan markaad joogto si aadan waxaas u marin hadhow dhibaatadaas waxaad sameynaysaa inaad halkan browse tiraahdo kadib aad folder hadhow ugu hagaagto wixii aad export gareysay aad doorato. imika kale waxaan dooranayaa Adobe Premiere kaasaan dooranayaa folderka kadib select folder baan leeyahay uu dooranaya. imika wax kasta oo export gareeyo waxa la ii geynayaa folderka Adobe Premiere oo hadhow marka waxa igala baxayo iron ba folderka tagay folderka waan kala soo baxaya. setting-kan kale waxba muxuu ahaa ku dawaq waxba uma baahin. kadib okay baan leeyahay. okay marka ay dhahdo wuxuu geynayaa interface-kii Adobe Premiere Pro. interface-kii marka sidan u joogo uu si fiican buu habaysan yahay oo default-kiisii ku joogaa. marka waxaad isku dayaysaa inaad editing joogto markaad wax edit gareynayso oo color baad tegaysaa hadhow haddii aad color grading sameynayso. marka tabisku way kala duwan yihiin oo haddii aad effects tagto halkan effectyada lagaga soo daraa project-kaaga oo effectyada kaga soo daraysaa. marka way kala duwan yihiin tabisku oo waxaad u baahan tahay marka hore sida edit gareynayso inaad tabka editing joogto. editing markaad timaado qaabkan uu eegyahay interface-kaagu. marka haddii interface-ku waxa laga yaabaa inuu kaa khalkhalo oo ay kuwan iska kaa daba maraan oo kani halkan kaa tago aad sidaas oo kale ay kaaga khalkhasho meesha. marka haddii ay sidaas oo kale kaaga khalkhasho waxba muxuu ahaayay istooqin maysid. waxaad tegaysaa sidii aan Adobe-ooyinka hore waxa lisan jirnay haddii interface-ku ka dhex taato
Windows baad tagaysaa workspace baad tagaysaa waxaad isku dayaysaa un laakiin inaad editing panelka joogto oo haddii aad panel kala joogto hadhow oo aad reset aad tagto aad intaad Windows tagto adoo panel kala jooga aad reset save layout tiraahdo panelka aad joogto unbu sidii saxda ahayd kuugu celinaya laakiin panelka aad doonaysay editing ahaa haddii aad doonaysay in sidiisii lagugu celiyo aadan joogin sidiisii kuugu celin maayo marka waxaad samaynaysaa inaad marka hore isku daydo inaad editing doorato editing markaad doorato aad Windows haddana tagto workspace tagto haddana aad halkaad tiraahdo reset to save it layout reset to save layout markaa idhaahdo wuxuu igu celinayaa wax walba sidii markii u horreysay ee softwareka la soo dejiyo oo ahaa ayuu igu wada celinayaa qaabkaasaad usoo furanaysaa project cusub usoo samaysanaysaa muuqaalka dambe ayaan ku qaadan doonaa wixii intaa ka baxsan ee importing media getting your project set up waxyaabo fara badan baa ayaan inoo soo socdo aan qaadan doonaa fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe share like nagu dhiirigeli wixii faaleed qabto commentiga noogu reeb haddii aad su-aal haysan waxaad iga soo weydiin doontaa telegram linkiga aan xagga hoose dhigay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.